عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay taariikhdu tahay bisha saddexaad 14-keeda 2023 waxaynu joognaa oo aynu dabaal degaynaa xafladda daafurka qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici xubnaha golaha wasiirada gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland maayirka caasimadda Hargeysa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye hay'adaha kala duwan ee ka socda qaramada midoobay kuwa maxalliga ah iyo waliba kuwa kale ee localka ah ee iyagu maanta xafladda naga soo qayb galay martida haweenka dhalinyarada iyo caqliga ka soo qayb galay munaasabaddan aynu ku daahfuranano qorshaha saddexaad ee qaranka dhammaantiinba saaxiibayaal waxaan idinku soo dhawaynaynaa qasriga madaxtooyada Somaliland iyo qorshahan ay soo diyaarisay isla markaana ay aliftay wasaaradda qorshaynta qaranka iyo horumarka ee Somaliland oo hogaaminayo wasiir Dr. Buuxane inta aynaan haddaba xafladda bilaaban maadaama nahay ummad muslina waxaan ku furan doonaa aayadaha quraanka kariimka iyo qowlka Eebbe waxaan jecelahay inaan u yeero oo aayadaha quraanka kariimka aynu akhriin doono wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Somaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي بقى مهدله madaxweynaha qaranka iyo dhammaan xubnaha golaha wasiirada iyo martisharafta kale oo dhan waan salaamaynaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. ilaahay baynu ku xamdeynaa jamaceennan iyo xafladdan ballaadhan ee bilan mar haddii goob la isugu yimaado waajib waxaa diiniya inaynu isfarno ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa iyo inaynu furino ilaahay amarkiisa amarka ilaahay aynu furinayna waxaa ka mid ah aayaadka aynu akhrinay ee qur-aanka kariimka ah aynu ka soo xulannay
oo ina faraya mowduuc xidhiidh la leh mowduuca halka maanta ama xafladdan aynu agaasinay oo ku saabsan waxa la yidhaha qorshaha qaranka NDP3-ga qorshuhuna ma aha mid la dhashay ilbaxnimadan dambe ee dadku hadda ay ka sheekeeyaan ay yidhaahdaan waa qarnigii 16aad ayaa qorshuhu bilaabmay iyo wixii ka dambeeyey oo Maraykanka iyo dowladaha galbeedku ay Yurubtu ay bilaabeen laakiin waa waliidul islaam mid islaamka la dhashay ilaahay wuxuu ina faray in aynu u diyaar garowno shay mustaqbal aan wali imanin inagoo maanta halkan joogna oo ah cadowga in aynu iska difaacno oo xuduudaha muslimiinta ay leeyihiin in ay cadowga ka difaacaan markay gaalada la dagaalamayaan ba aayaadkan ina farayeen marka taasina waxa weeye waa arrin mustaqbal oo imika la qorsheynayo weeye qorshuhuna qaybihiisa kala duwan oo dhan quraanku ku yaala sunnadu ku yaala waa in sidaa loo fahmaa inuu yahay ilaahayna inaynu caabudno koonkana aynu camirno taasina waxay u baahan tahay qorshe wixii qorshe la'aan lala galaana waxa ay ku dambeeyaan fawdo iyo baaba waxa weeyaan qofka qorshe la'aan ku gala nolosha qorshe la'aan buu kaga baxaa marka maanta halkan waxaa inoo ah runtii wax weyn oo lagu farxo qorshihii qaranka oo aynu halkan ku soo bandhigi doono sida halkan xafladdu ay tahay ulajeedkeedu ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo miman yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed waxaan u yeeli doonaa si uu uga faahfaahiyo qorshahan iyo halka uu ka soo bilaabay waxaan u yeeli doonaa madaxa guddida diyaarisay qorshaha horumarinta qaranka khadar axmed cabdi kadheere ha soo dhowaado waxaan doonayaa kolley anigu waqti badan qaadan maayo waxaan ahaa madaxa ama guddoomiyihii guddida qoraysay buuggan la yidhaahdo National Development Plan ama qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad 2023 2027 waxaan doonayaa si malaha dadku tusaalayaasha wax ku fahmaana si wax loo fahmo waddanka horumarku gaadhay iyo halka aynu marayno inaan tusaale ku yara bixiyo anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii ugu horeysay ee Somaliland 1992 markay bilaabantay ardaydii ugu horeysay ee iskuulada waddanka fadhiisata ee waliba daasadaha ku fadhiisan jirtay baan ka mid ahaa waxaan wax ku bartay oo aan wax ku dhigtay waddanka magaalada Hargeysa waxaan ahaa ardaydii ka baxday ugu horeysay iskuulka SOS ama Sheekh Gala baan ka mid ahaa marka waxa aad loogu farxaa maanta ah ardaydii waddanka waxbarashadiisa la bilowday markuu waddanku muxuu ahaa 19 waddanku soo noqonay inay dadkaasi ay maanta yihiin dadka hogaaminayo qoritaanka qorshayaasha guud ee qaranka lagu horumarinayo waa wax aad loogu farxo anigu uun maan diyaari qorshahan laakiin waxaan ahayn guddi ka kooban 16 oo aan anigu hogaaminayay guddida aan hogaaminayay 16 qofa 14 kamid baan rajaynayaa inay ahaayeen dad reer Soomaaliland oo waddanka u dhashay halka ay maanta 2 qof oo quro ajaanibi ay nala shaqaynayeen xilligiisina inta badan waxa laga yaabaa dad badan oo ajaanibi inay nala shaqaynayeen taasoo ku tusinayso horumarka uu waddanku gaadhay ama uu ku socdo sidoo kale waxaad arkaysaa markaad wadamada jaarka aad eegto had iyo jeer dadka u yimaada ee qorshahooda qoraa waa dad dibadaha laga soo kareystay laakiin maanta waxa alxamdulillah dadka maanta qorshaha waddanka horumarkiisa qoraya inay yihiin dad waddanka wax ku bartay oo dalka leh inta markan ka tago mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan hal qodob cadeeyo buuggan aynu maanta halkan ku soo bandhigaynaa ee loo fadhiyo xafladiisa waa buug markan kelmadan siri aad ku cabiri kartaa waxa weey organic waxa la yiraahdo organic kulli waa la wada garanaya laakiin waxa weeyaan waxaynu inagu iska leenahay qoraalkiisa kelmad kasto ku qorani waa kelmad uu qaranku leeyahay taasoo ah wax lagu farxo oo ay dhammaan ka qayb qaateen institutionada ama hay'adaha kala duwan ee dawliga inta markan ka tago kulli buuggan macna badan buu xambaarsan yahay
dad badanna way ka hadli doonaan waxaan doonayaa inaan muxuu ahaayay laba qodob aan ka hadlo buugan ku saabsan midka ugu horeeya waxa weeye qorshaha horumarinta qaranka waxa loogu talagalay ama loo asteeyay inuu wadanka hogaamiyo ama uu hanuuniyo horumarkiisa 5 sanadood ee soo socda si haddaba Somaliland taa u gaadho ama ay taa uga midho keento maadaama anigu almost 10 bilood u dambeeyay hawshan aan ku jirnaan ka shaqaynayay waxaan la fadhiistay ama aan ka qayb qaatay ama aan la kulmay dhammaan institutionada wadanka ee dawliga ah waxaan ka qoray wax oo aan muxuu ahaayay ka document gareeyeen akhriyay dhammaan siyaasadaha iyo wixii jira ee wadanka muxuu ahaayay u yaallay imika lagu xisaabtami karo anoo background-ka ama muxuu qodobka ka duulaya waxaan rabaa inaan hal qodob oo ku saabsan waxa la yiraahdo Somaliland Development Architect inaan sheego waa maxay Somaliland Development Architect-gu wadan kasta ama qaran kasta oo muxuu ahaayay adduunyada ka jira wuxuu leeyahay nidaam ama khariirad uu horumarkiisu ku salaysan yahay innaga marka khariirada horumarkeenu ku salaysan yahay waa waxa la yiraahdo sectoriska ayuu ku samaysan yahay marka ugu horeysa waxaynu leenahay national vision waxa la yiraahdo himilaynu leenahay ama target aynu gaarayno oo la doonayo in la gaarno targetka aynu gaarayno ayaa inoo ah bartilmaameedka aynu gaarayno xafiis kasta oo qaranku leeyahay iyo hay'ad kasta iyo institution kasta oo wadanka ah way taallaa muxuu ahaay visionka uu wadanku leeyahay visionka uu wadanku leeyahay markii la eegay waxa la yiri si visionka loo gaaro maxaa inoo sahlaayay inaynu gaadhno visionka waxa la isla eegay marka institutionskeena dawliga ah siday u habaysan yihiin sidaynu habayn karnaa imika awoodaheena maadaama qaranku awoodo kala duwan leeyahay awoodaha qaranku leeyahay sida la isku geyn karaa loo habayn karaa marka midda ugu horeysa waxa weeyaan bilarka koowaad ama tiirka koowaad oo ah economic development-ga waxa la yiraahdo oo institutions badan ay dawliga ku wada jiraan qodobka labaad waa infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha oo institution badan oo dawliga ku wada jiraan isagana waxa kamid ah oo kale kaasoo kala dansaale ka soo qaada airportada dekedaha ICT-ga iyo wadooyinka intaaba waa la israaciyo waxa la yiraahdo infrastructure sector ha laga dhigo waxa ku jira good governance maamul wanaaga wasaaradda arrimaha gudaha hogaamiso waxa ku jira social development horumarka arrimaha bulshada waxa ku jira environment-ga deegaanka oo ah arrin aad u muhiim ah waxa ugu dambeeya 6 tiir ee qorshaha horumarinta qaranka ku taagan yahay waxa la yiraahdo judiciary-ga ama muxuu ahaay garsoorka waaxda garsoorka inta marka laga tago kulli details badan oo kala ku sii hoos jira ma doonayo inaan gaadho laakiin qodobka ugu muhiimsan ee maanta aan doonayo halkan ka sheega waxa weeyaan waa NDB3-gani muxuu leeyahay selling point ama uniqueness-kiisu waa maxay hadaynu ka eegno maxaa jira ama muxuu ahaay sidee buu uga duwanaan karaan waxyaabihii hore qodobka ugu horeeyaan doonayna halkan ka sheega waxa weeyaan wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo costing ama qiimayn chapter kasta oo buuga kamid ah sector-ka waxa la yiraahdo sector chapter-iska imika dad aragto waxa la yiraahdo infrastructure-ka kaabayaasheena dhaqaalaha waxaad helaysaa qiimayntii markii la fadhiistay institutionada ka shaqeeya ee wasaaradda qorsheyntu la hadashay ee discussions badan laga galay dood badan oo ay dawladdu kamid tahay oo ay kamid tahay ururada bulshada waxa soo dhan marka laga galay in la sameeyay qiimayntaasi marka waxay sheegaysaa wixii ku bixi lahaa kharashkii ku bixi lahaa hawsha marka kharashka ku bixi lahaa hawshaas ay chapter kasta sheegaya qodobka labaad waxa weeyaan wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo implementation strategy ama sidii loo hirgelin lahaa buugan oo aad u muhiim ah sidii loo hirgelin lahaa markii la qoray lagama tagin uun sidan u ahaanaya laakiin waxaan laga fikiray oo qaranka looga fikiray oo dawladdu ka fadhiisatay oo la isweydiiyay oo cid kasta lala fadhiistay sidii ugu fiicnayd ee loo hirgelin lahaa marka hirgelintaas waxyaabo dhowr qodob ay xoog saaraya midka ugu horeeya waxa weeyaan xoog saaraya in la helo human skill capacity bini aadam tayale in la helo waayo bini aadam tayale oo shaqaynaya saacado dheer oo qabanaya hawsha oo qaranka u shaqaynaya in la helaa skill waliba si ay productivity-gu u korodho wadanka tusaale ahaan teamkayagii imika aan ka wada shaqaynayaan NDB3-ga to be honest waxa rabaa in halkan ka sheego waxa dhici jirtay marmarka qaarkood in 18 hours out of 24 hours ka shaqayn jireen ayay sameyn jireen marka haddii Ilaahay yiraahdo kulli waxyaabahaas muhiim ah waxa kamid ah iyadna sidii qarashka lagu helaa waxa kamid ah qiimaynta iyo dabagalka waxa kamid ah budgetka iyo sidee wada shaqayn laayeen waxyaabahaas oo dhan baa kamid ah
halkaasaan ku soo gabagabaynayaa because time-ka oo yar awgi aad iyo aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta qaranka iyo horumarinta oo door weyn ku lahaa barnaamijkan muddadii uu socday kaasi oo hagayay hadba halka uu marayo soo dhawaagays بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Good morning ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirada sharafta leh ee iyaguna halkan jooga ee qayb ka ah horumarka qaranka ka socda ambassadorska jooga the United Nations representatives international organizations civil society organizations iyo dadka kale ee qiimaha iyo sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan aad iyo aad baan idin salaamayaa salaantaas kadib waxaan horta u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland fursad uu ku soo bandhigo inuu wasaaradda qorsheynta siiyay madaxtooyada waxay arrintaasi jawaab u tahay sida uu qiimeynayo madaxweynuhu qorshaha qaranka marka taa waanu uga mahad celinaynaa intaanan bilaabin hadalkayga waxaan jecelahay mudane madaxweyne inaan in yar horumarkeenu tiirarka iyo quwadaha uu ku fadhiyo haddaynu dib isku yar xasuusino arrimo aynu had iyo jeer noo la ilduufno ama aynu overlook garayno ayaa jira markii aanu soo bandhigaynay qorshahan horumarka markii horeysay aanu daahfuraynay waxaan ka sheekeeyey 1991kii markii la isku yimi 6 gobol ee dalkeena aanu dhisanaynay xagga sociology-ga marka laga eego dadkii intay halkaas ugu yimaadeen lahaa meel baanu dhisanaynaa iyo qaran baanu dhisanaynaa waxa isweydaarsanaa khayraadka ay haystaan iyo dadka maxaad markaa ka garanaysay haddaynu xagga sociology ka eegno waxaanu ka garanaynay dad hamigoogu uu sarreeyo waxyaabaha inaan dareensanin laakiin waqtiyada ka dhashay waxa weeye waxa abuurmay wax la yiraahdo afka sociology-ga social value ama qiyam bulsho oo adag ayaa noo abuurmay oo oranaya inaan wax walba inagu qabsan karno arinta kale iyaduna muhiimka ah ee aan maanta halkan khadarna ka sheegay aad baan mahad celinayaa waxa kamid ah iyaduna yani daraasaad markaan sameeyno dadkii wadanka iyo maanta horumarka inoo horseero asaasayaasheen iyo maanta inoo fadhiya oo madaxweynuhu safka hore kaga jiray markaan la sheekaysano aan ku nidhaano muxuu ahaa waxyaabaha drive risk ama dabadeedii ka riixayay markii aad nabadda iyo horumarka maanta aanu ku taamayno aad samaynayseen waxaan ku odhanayaa waxaan ugu dhex jiray generationka dambe dhalinyarta dambe sidii ay nabad u heli lahayd sidii ay u heli lahayd fursad shaqo sidii ay u heli lahayd nolol wanaagsan ugu heli lahayd waxaan maanta haddaba halkan maanta ka sheegaya mudane madaxweyne wasiirada sharafta leh iyo marti sharafta kaleba hiraalka maanta barigaad lahaydeen oo nool ayaa maanta halkan socda waa hiraalkaas oo your vision and move maadaama 90% dhalinyarta samaysay mashruucan ama NDP3 ay ahaayeen dhalinyar ku hoos baratay calanka jamhuuriyadda Somaliland maadaama ay ahaayeen marka hiraalkiini iyo visionkiini iyo nool weeye mudane madaxweyne qorshaha qaranku mudane madaxweyne ma aha qorshe malawaal ku salaysan waa qorshe ku salaysan xog iyo dhab dadkii uu khuseeyay laga soo ururiyay waa qorshe lagala tashaday dhammaan hay'adaha khuseeyo gobolada lagala soo tashaday waxa lagala soo tashaday districtka lagala soo tashaday waxa lagala soo tashaday tuulooyinka lagala soo tashaday waxa aan ku qaadanay ilaa dad 1000 qof oo reer Soomaaliland ayaa kamid ah kulanada la sameeyay dadkii ka qayb galay qorshuhu marka waa qorshaha noocaas ah ee aynu dhammaan dadku ay ka wada mid yihiin haddii la yiraahdo mudan madaxweyne qorshaha qaranku waa arrimaha hadii jarana la isku qaldo qorshaha qaranku
project maaha qorshaha qaranku waxa weeye waa vision aynu leenahay qarannimada oo visionka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku hogaaminayo oo ah dad dimuqraadi ah oo barwaaqaysan oo dadkoodna nolol fiican ku nool yihiin noloshaasina ay tahay nolol siman yahay waa visionka aynu ku soconaa waa ka waxaan kale ee inoogu qoran halkan waa milestones aynu ku gaadhayno qorsheena horumarinta qorshaha horumarinta markaynu ka hadlayno walaalayaal muxuu kaga duwan yahay khadarna uu sheegay qorshayaashii hore wuxuu kaga duwan yahay waa hybrid laba model ayaan isku dhex darnay oo ka duwan sidii hore berigii hore waxay ahayd waaxaha ayaa sectorska waxa la yiraahdo waxbarashada caafimaadka arrimaha noocaas aan u qaybinaynay laakiin imika waxa lagu soo daray wax la yiraahdo flagship program oo ah mashaariic ay ka mid tahay tusaale aynu soo qaadanayno karno berbera mashruuca berbera ka socda waa mashaariic wixii is qaadan karaya ee economigeena wax ka bedelayo dhan sidii aynu ugu sameyn lahayn mid walaalayaal aan ku soo sameynay laakiin mashruuceena horumarinta qaranku maanta wuxuu taagan yahay halkii la sameeyey hawshii ugu badneed hadda ay harsan tahay oo ah fulintiisii waxaa naga go'an mudane madaxweyne fulinta hawshaasi inaanu si fiican u fulino anagoo kaashanayna international communities kana kaashanayna xoogeennana kaashanayna aqoonteennana kaashanayna inay si fiican aan u fulino inaanu iswaafajinno ama waxa afka projectska alignments lagu yiraahdo waxa ay international community wadaan iyo waxa aynu inagu qorsheena qaranku sheegayna inaynu iswaafajinno ayaa iyadana naga go'an waxa mudane madaxweyne marka laga maarmaan noqon doonta diilaha wasaaradda qorsheynta in capacity-geega iyo tayada ay wax ku qabanayso inaanu ka qaadno reform baan ku sameyn doonaa haddii la yiraahdo anagu waxaanu aaminsanahay wasaaradda qorsheynta inay tahay technocrat facility meel dad farsamo isugu yimaadaan meel dadka lagu xushay yaamaan dheer laakiin yaalaan dheer aanan ku xulan ee cidii wax garanaysa aan isugu yeedhno ayaan doonaynaa noqono waxaan doonaynaa inaan mashruucan aanu noqon mashruuc mala awaal lagu maamulo laakiin mashruuc ku socda qiyaas oo tirooyina oo waxaynu gaadhnay iyo waxayna gaarin bay noo sheegaya inuu noqdo statistics aynu cabir karno xog iyo dhab ku salaysan waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay mashruucan guddida technical teamka ayaan aad uga mahad celinayaa guddidaas oo inta badan 90% ahayd dadkeenii dhalinyarteennii reer Soomaaliland baan uga mahad celinayaa waxa kale oo aad uga mahad celinaya international organizationska doorkii ay ku lahaayeen United Nations doorkii ku lahayd wadamada in caawiya Ingiriiska Denmark dhammaan doorkii ku lahaayeen iyagana aad baan uga mahad celinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh imika waxaan u yeedhi doonaa oo aan ku soo dhaweyn doonaa mikrofoonka Master Simon oo ku hadli doona magaca UNSAM. Your Excellency, President Bihi, distinguished members of the Cabinet of Ministers, and also distinguished guests. On behalf of the United Nations system, I would like to take this opportunity to congratulate the team which has drawn this together. NDP 3 is an impressive, an exciting document. Impressive in its scope and its ambition. Sure, it is not going to be achieved easily. It throws down many challenges, not just to government, but to the international community supporting government and to the people of Somaliland, to the private sector. There are many challenges lie ahead. On behalf of the UN system, we look forward to working with you towards achieving those challenges. We have been involved in working closely with the team led most recently by Dr. Bahane in the Ministry of Planning. The UN system here in Hargeisa draws together humanitarian partners, development partners, United Nations specialized agencies. Each one of those has a separate and a distinct contribution to make to
the NDP3, the achievement of NDP3, and ultimately the progress towards Vision 2030, which is closely aligned with the international aspirations for 2030 reflected in the Sustainable Development Goals. We look forward to this. As I say, it is not going to be a quick task. It will not be easy. There will be frustrations. I'm sure that the government are no stranger to the frustrations, perhaps, of working with the international community. But we also look forward to addressing those constructively. There will be challenges, as I said, in drawing together the NDP objectives along with the Sustainable Development Goals. As Secretary General Guterres mentioned in one of his first pronouncements upon being appointed Secretary General of the United Nations, the challenge is to ensure that peace, development, and human rights can advance consistently and coherently together. You don't get progress in one area without the others. That's a challenge. We look forward to working with you. With that, thank you very much, and we look forward to the challenges in future. imikana waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo David Ogola. The honor is yours, Your Excellency, the President of Somaliland, Your Excellency, the Vice President, the Chief Justice, Cabinet Ministers, all members of government in your respective capacities, UN colleagues, civil society organizations, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. Your Excellency, I bring you greetings from the United Nations Resident Coordinator, Dr. Adam, who was not able to attend this event because of other engagements, and he asked me to represent him. And he says, congratulations to you and your government for this achievement. Planning is one thing. Working the plan is another. We would like to thank every partner and actor who has played a key role in supporting the government of Somaliland to make sure that we have a roadmap that is going to shape the development of Somaliland for the next 5 years. It is satisfying, Your Excellency, to note that the process has strived to be participatory and that the Ministry of Planning played a critical role in ensuring that the aspirations of the different stakeholders are captured so that we have an inclusive process. Your Excellency, on behalf of the United Nations and on behalf of the United Nations Rights Coordinator, I would like to reiterate and pledge the continued availability of the United Nations to support sustainable development of Somaliland, its peace, and also stability. Together, we will achieve. Together, we will succeed. Thank you very much. imikana waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo wasiirka deegaanka ee Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare oo awoodda saari doonta qorshaha horumarinta qaranka gaar ahaan aasaaskii sanduuqa horumarinta ee qaranka. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha maxkamadaha, kolay taytaladii way kala lumayaane madaxda maanta halkan wada joogtay ama baarlamaan ka yimaadaan labadaba iyo inta kale ee marti sharafka wasiirada dhamaantiin waan idin wada salaamaya. run ahaantii Ilaahay baa mahad leh halkan in isugu keenay
waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii number 1 ka ahaa in qorshahaasi hirgalo waliba waqtigiisii ku hirgalo wasiirka wasaaradda planning ama qorsheynta iyo tiimkiisaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mahadda saddexaad waxaan u celinayaa Saacad Cali Shire oo markii ugu horeysay labadii kun waxaan u malaynayaa 12kii bay ahayd waqtigii 12kii bay ahayd noo yeedhay oo runtii nagala tashaday qorshaha markii ugu horeysay la sameynayay kii ugu horeeyay anigu haddaan wax yar aan dib u eegoon milicsado waxa jirtay waqti aan maanta imika waxaan u malaynayaa bishan 18keeda ayaa 30kii sanadoodii dhamaanaya inta Soomaaliland ku soo noqday waxa jirtay waqti aan qolo u tagay aan ka doonayay lacag oo ay weydiiyeen qorshe ma leedahay ama waxay yiraahdeen strategic plan ma leedihiin waxaan ku intan soo weegay waraaqdan aan sitaa qorshahayguna waxa weeyaan toddobaadkan in aan hawsha qabto qorshahaygu toddobaadkaas buu ku ekaa waxay ahayd 93gii maanta marka aan eego 15 sanadood ayaynu imika qorshahan istaba joogay aynu wadnay qorshahan aynu maanta ku xisaabtamayna ee ka saddexaadihi marka ugu horeysa wasaaradihii iyo hay'adihii ku shaqada lahaa ayaa contribution-kii ugu weynaa ka geystay mid waliba waxay soo keentay oo soo cayintay baahidoodii oo ku salaysan 5 sanadood waxa la wareegay wasaaradda qorsheynta wasaaraddu markay la wareegtayna xoogay dul dhigtay in ay waqtigeedu ku dhamaado oo sidii ugu qurux badnayd aynu u iibin karaynay ayay iyaguna ay xooga saareen halka hadaynu ka sii gudubnay qorshahan imika maanta aynu halkan u joognaa markaad eegto 250 waa gender ama waa female ama waa women 250 halka waxa ku cadayn doonta oo aad ku arki doontaan qorshahaasi sidii wax loogu qaban lahaa marka qorshahani rag iyo dumar isagoo labadaba ah ayaa haddana wuxuu ahamiyadda siinaya sidii wax loogu qaban lahaa female-ka ama dumarka ama waliba dadka nugul ee maanta Soomaaliland ama ha nugleeyo isbedelka cimiladu ama si kalaba ha u nuglaadeen qorshahani wuxuu ku fadhiyaa sidii dadkaasi loo caawin lahaa qorshahan haddaba xagaynu ka keenaynaa waxaynu isleenahay oo ku fulaya 2023 ilaa 2027 waxaynu isleenahay aynu la kaashanaynaa oo xooga saaraynaa sidii international community-gu inooga caawin lahaayeen number 1ka uga qayb qaadan lahaayeen dalkan dhismihiisa 30 sanadood uu soo socdayba Soomaaliland iyada garabka isqabatay haddana garabka labaad waxa waday international community-ga waxaan markaa anigu imika isleeyahay aad ku soo gabagabaysid one more thing na aad u sheegtid international community-ga xooga iyaga maanta leh in qorshahan la fuliyaan way Soomaaliland inta ay iyadu soo saartay ama revenue-goodu yahay ama ay soo saartay lacag soo saarto intaba 40% inta ugu yartay ama 38 wuxuu ku baxayaa waa security-ka Soomaaliland waxa la leeyahay waxay nagu xeeran waynu garanayna marka international community-ga laga doonayo inay xooga saaraan in ay qorshahan u fulo waxa jirta haddii aan xaggan eego environment-ka haddaan eego annaga network-ba waa joognaa maanta waxa weeyaan problemka ugu weyn ee maanta environment-ka haysta waa conflict of resources weeye maxaa la isku haystaa waa khayraadkii dabiiciga ah baa la isku haystaa ama dhul ha ahaado ama banaan ha ahaado ama buur ha ahaado ama bad ha ahaado waa khayraadkii dabiiciga ah baa ummaddu isku haysataa in that sense qorshahan wuxuu dhigayaa sidii loo kala saari lahaa shuruucdoodii hawshoodii regulationskoodii waxoodii oo dhan buu dhigayaa iyadoo lacagaysan oo qiimaysan oo to the penny ayuu dhigayaa waxa kale network maanta
jira aafooyinkaas soo noqnoqonaya abaaraha maanta aad arkaysaan iyagana kaydkii raashinka waxa laga doonaya oo waliba laga filaya sanadihan waynu arkaynaa inay iyaguna ay diyaariyaan waxa laaliyo wixii lagu badbaadin lahaa ummadeena oo ay furanka dawladda Soomaaliland waqti kasta ay ka tahay markay ay dhacaan aafooyinku number 1 ka ay dawladdu reaction keeda ama sidii ay markiiba u qaadayso talaabada koobaad ay number 1 ka tahay waxaan ku soo gabagabeynayaa aan halkan ku soo gabagabeynay qorshe la'aani waa dooni bad maraysa oo aan kambas lahayn waxa weeyaan qorshaha maanta sida uu yahay xarfiyan ilaa lacagtiisii ilaa implementationkiisii inaynu ku shaqeyno haddaynu nahay wasaaradaha iyo hay'adaha madax bannaan iyagoo number 1 ka inaga caawinayaan oo aynu ka codsanayno international community-gu si ay noo garab taagnaan jireen tanna inoogu garab taagnaadaan waxaan ka xumahay inaan ka tegay safiirada maanta halka wada jooga iyo haweenka quruxda badan laba iyo intaana labadooduna raalayga ahaan aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa kaloo aan jecelahay iminka inaan ku soo dhaweeyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo isagu awoodda saari doona sanduuqa horumarinta Somaliland iyo qorshaha guud ee qaranka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha maxkamadda wasiirada xildhibaanada marti sharafta mudanayaal iyo marwooyinba waan wada salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u soo kacay inaan ka hadlo shay kaliya shaygaas waxa weeye waa maalgelinta qorshaha madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaynu maanta halkan isugu nimi inaynu daahfuro qorshihii saddexaad ee qaranka ee sanadada 2023 ilaa 2027 waxaa ka horeeyay laba qorshe kii ugu horeeyay wuxuu ahaa qorshihii 2012 ilaa 2016 kii labaadna wuxuu ahaa 2017 ilaa 2021 haddaynu dib u milcisano labada qorshe hore waxaana way nooga hirgaleen in badanna inoogama hirgelin sababtuna waxay ahayd maalgashigii aynu ku tashanay ayaanayna soo wada gaadhin sababtuna waxay markaynu qorsheynaynay waxaynu qoondada koobaad siinay deeqda hay'adaha caalamku ayna siiyaan hay'adaha caalamka intii aynu ugu talagalay inuu qoondeynay kamaynaan helin marka halkaa deris baa u baahan in laga barto derisku markaa wuxuu noqonayaa in inta badan inuu kaaynu isku tashanno hay'adaha caalamka ee waxna siiya way mahadsan yihiin intii hore inoo siiyeen way ku mahadsan yihiin inta dambe ayna siin doonaan way ku mahadsan yihiin laakiin waxaynu u baahannahay inaku si gaar ah isugu tashanno waanaynu ka bixi karaa haddii 4 shay haddii la sameeyo horta kow inaynu sameyno sanduuq harumar oo miisaaniyadda ka mid ah oo lagu soo ururiyo mashaariicda kala firqsan ee wasaaradaha hoos timaada haddii baynu go'aansano 20% miisaaniyaddeenna inaynu sanduuqa ku shubno waxay noo soo bixi doonaan ilaa 60 milyan bay noo soo bixi doonaan kaas waa qodobka hore qodobka labaad waxaynu u baahannahay inaynu runtii ka faa'iidaysano qaybta gaarka ah ama private-ka loo leeyahay hantidooda waxaynu taas samayn karraa uga faa'iidaysan karraa haddaynu samayno shirkad saami leh iminka mashkilada jirtaa waxa weeye haddaan 10,000 haysto oo dollar oo aan doonayo inaan maal gashado sidii aan u maal gashan lahaa jidkii ma jiro marka haddaynu abuuro shirkad saami leh oo qofku saami ka iibsan karo markuu u baahdana uu iibin karo saamigiisa waxay dhiiri gelinaysaa maalgashiga iyo dhigaalka ay dhiiri gelinaysaa tasaddexaadna waxa weeye inay dawladdu iibiso deyn xalaal ah
caalamkoo dhan mashaariicda waaweyn waxaa lagu dhisaa dayn baa lagu dhisaa waddamadu intay u badan yihiin waxa la yidhaahdo treasury bonds bay iibiyaan oo dadka ka iibiyaan waxa weeye lacagtaada imika isii dayn bay igu noqonaysaa waan kuu soo celin waxna waan kuu saaraya laakiin kaasu maadaama inagu xaggeena xaaraan ka yahay sharciyan waxaynu isticmaali karaa kuwa xalaala dayn xalaala sukuk baa la yidhaha halka bondka marka lacagtaa inta badan waxaa lagu isticmaali karaa meelaha dakhligu ka soo baxo sida korontada sida biyaha sida guryaha ayaa lagu isticmaali karaa taafraadna waxa weeye inaynu dadkeena ku dhiirigelinno inay badiyaan dhigaalka xagga dhigaalkeenu aad iyo aad buu u hooseeyaa innaka haddaynu reer somalilan guud ahaan waxaa lagu qiyaasaa 10% wixiina soo galay inuu dhiganno 9% waynu cunaa 10% waynu dhignaa laakiin marka la isku celceliyo caalamka 4% bay dadku dhigtaan haddii markaa aynu ku dhiirigelino dadkeena in 15% ay dhigtaan dakhliga soo gala wuxuu sanadkii noqonayaa 525 milyan haddii 525 milyan ee dhigaalka baananka laga helo baanankuna dadka ay deymiyaan dawladdana deymiyaan marka waxay noo soo baxaya intii aynu u baahnayn oo dhan ee aan qorshaysanay qorshaha saddexaad ee qaranka marka waxaynu u baahannahay in aynu haddii aynu nahay xukuumadda iyo shacabka Somaliland inaku inta badan ku tashanno inaynu bixinno kharashka looga baahan yahay in lagu dhaqan geliyo qorshaha qaranka ee saddexaad marka la eego qorshaha qaranka lacagtu u baahan yahay waa 2,600 milyan amba 2 bilyan iyo 600 milyan waxaad moodaa lacag badan inay tahay laakiin runtii marka loo eego awooddeena marka la eego GDP-geena oo kale iyo inuu qorshuhu qaadanayo 5 sano wax weyn maaha oo waxaynu samayn karraa weeye aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Somaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ka hore dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بعد السلام مهمة ugu weynayd shaqada la soo qabtay waa la sheegay waxaan ku yar noqonayaa oo kaliya in aan marnay dhamaan xeerarka qaranka u dejisan marka la soo bandhigayo buuggaas oo kale in aanu marsiinay annagu markaanu qoraalkii dhammaynay waxaan u gudbinay guddiga sare ee qaranka National Planning Committee oo ka kooban 12 wasiir 3 jeer baan hor dhignay ugu dambeynna waynu approve gareeyeen golaha wasiirada 3 jeer baan hor dhignay oo aynu approve gareeyeen madaxweynaha qarankana 2 jeer baan u present gareynay oo noo approve gareeyay ugu dambeyn madaxweynuhu wuxuu noo amray 1 bishii February inaan soo dayno buugga sida oo kale waxaanu intaanaanu soo bandhigin aanu u dirnay adduunweynaha bishii 1 7deedii waxay haysteen 17 cisho way noo soo celiyeen iyagoo soo wada approve gareeyay sida oo kale waxaan u dirnay in aanu quality assurance-ka maadaama annaga luqadda aan ku qornay iyo cilmiga aan ku qornay aan doonaynay adduunyadu inay wada fahamto aan doonaynay waxaan ittifaaqiyad la galnay Institute of State Effectiveness hay'ad la yiraahdo oo ka dhisan waddanka Mareykanka khubaro badanna leh oo u bandhignay oo haysatay 22 cisho oo si fiican u baadhay wax alla wixii khalad luqadeed farsamo ku jir lahaa naga saxday infographiga iyo qurxinta iyo wanaajintiisana nagala qayb qaadatay ugu dambeyn golaha wasiiradu bishii February 23 sanadkan ayay noo approve gareeyeen sidaasaanu maantana aanu ku soo bandhignay waxaan u mahadnaqayaa shaqada xoogga la qabtay qiimaheeda guddigii qoray nidaamkii golaha wasiirada
iyo wasiiradii iyo hay-adihii qaranka iyo shacbi weynihii iyo degmooyinkii gobolladii iyo maamuladii ka jiray een la xidhiidhnay ee sida sharafta leh nooga ajiibay inay noo soo gudbiyaan qorshayaashii aan hordhignay madaxweyne waxa aanu ballan qaadaynaa marka aanu soo gudbinay maanta inaan u dirnay isla markiiba tarjumaad degdega dabadeed sida ugu dhaqsiyaha badan leh dastuurkeenu amrayo in luqadda rasmiga dalku ay tahay Soomaali ta ku xigtaana ay tahay Carabi in insha Allah taala bilaha soo socdo degdega ah aan ku soo saari doono isagoo Carabiya iyo isagoo afkeeni hooye Soomaaliga ah sidoo kale madaxweyne way jajabin doonaa jajabin baan ugu talagalnay oo ah sanad walba dalku wuxuu qaadi karayo sida wasiir Sacad sheegay qorshuhu waxa weeye 2 bilyan iyo 600 milyan waxaan qorsheynay inaanu 5 sanadood midkiiba uu qaato 550 milyan buu qaadan doonaa taasaan qorsheynay way jajabin doonaa waana hordhigi doonaa hay'ad kastaba inta ay qabanayso madaxweyne waxaan qorsheynay inaanu hordhigno dhammaan hay'adaha adduunyada waxaan kaloo bandhignay inay dawladdu ka qayb qaadato waxaan kaloo bandhigi doonaa private sector-ku inay ka qayb qaataan horumarintaas waxaan kaloo codsanaynaa in mashruuca ama diiwaanka sakada uu aanu bandhigno sidaa awgeed waxaan rajo weyn ka qabnaa in mashruucaasi uu ka qurux badnaan doono hirgelintiisu kuwii hore ayaan rajo weyn ka qabnaa madaxweyne waxaan kaa codsanayaa iyo marti sharaftaba in aad iigu sacabtuntaan iguna mahadnaqdaan dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee dalka ku dhashay ee waqtiga intaa leeg shaqaynayay inaan u mahadnaqo anigoo idinka codsanaya inaan hortiina ku xuso walaalaha iyo khubarada Soomaaliland dariska ah magacaantooda dhammaystiran waxaan oran lahaa ka yeeriya hayr istaago idinkuna soo dhaweeyo ku karaameeyo maadaama aan hanti xoolo badan la haysan intaas ay noogu filan Khadar Ahmed Cabdi Gardheere Nimco Ahmed Ismaaciil Maxamed Ismaaciil Maxamed حسن حسين أحمد عبد الفتاح سلطان آذن عبد الله أحمد حرسي مبارك عبد الله إبراهيم عثمان حسين ورسمة سمسم محمود أحمد محمد محمود عوالي محمد جامع مدر مهدي عمر شيخ أحمد آدم محمد عبد الرحمن أحمد سليمان وحا كلا هالنقيا أقويهن آد نوغو عسلا وودا شي دالك هولاند أنتوني فان ديلو iyo inanka u dhashay reer Gambiya ee Mamadou Kediba dhamaantood waxayna la qabteen shaqada culus intaana waxaan kaga mahadnaqayaa taa qorshaha dalka aynu u dejinay hadafka ugu weyn ee gaarina waxa weeye waa isku filnaansho cidda isku fillaata ee hantideeda iyo xoolaheeda soo saarata ee waxay cunto soo saarata ayaa waxay awoodi kartaa inay go'aamadii doonto qaadato sidii carabtu ay oran jirtay man yamlik quutahu yamlik qaraarahu ninka awoodu hela inuu raashinkiisa iyo xoolihiisa isagoo isticmaalo helo ayaa go'aan yeelan kara inta aad gacanta hoorsanayso qiimo ma lihid ilaahay waxaa ka rajaynayaa 5 sano soo socota in hadafkaasi in badani ay nooga hirgasho والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي. وحن آدي بوجادنا يا وزارة قرشينته يا عدي كتبة تابي سيبا ما أنت صوبا نجاي قرشها قرنكه شمت السنة صوص عضة وأن كبوجادنا يا ذلك بدل
tamariyada dhaqaale saacadaha badan ay shaqeeyeen iyagii intii la shaqaysayba qorshaha ay soo saareen oo dhowr jeer oo horena aan kala qayb galay waa qorshe haddii alla yidhaahdo oo aynu ku dadaalno inaynu sidiisa u hirgelinno aynu ku gaadhino horumar dhaqaale oo dhinac walba ah sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa oo aan ka codsanayaa hay-ad walba iyo cid walba mas-uuliyadda uu saarayo hadday dowladda tahay hadday ganacsato tahay hadday aqoon-yahan tahay somalilan qof walba iyo hay-ad waliba inay xil iska saarto inaynu hareeraha ka joogsanno oonu wada hirgelinno sababtoo ah waa danteennii waa mustaqbalkeennii inagoo isugu tagna oo taa ka midha dhalina ayuun baynu mustaqbalkeena horumar ku gaaraynaa inteenna nool intaynu joogno ubadkeennana mustaqbal kan maanta ka wanaagsan ugu samayn karaa waxaan taageerayaa fikradda odhanaysa wixii gacmahaaga biyolagay dhargaa meel ku gaari mayno caawimo iyo yaboo layna siiyaa meel gaari mayno waxaynu u baahannahay innu maskaxdeena ku korino 30 sano baynu dhahan hay-adayna caawinayo meel baa layna caawiyo haddana baryadeennu intii horumar ka sii baatahay kama yaraato qabkeennu hoos buu sii dhacaa oo waxaynu sii qabatinaa baryada marka waxaan u lahaa qorshahaasi maskaxdeena ha koriyo horumarkeena dhaqaaleena ha koriya aynu soo tagno aad baan mar labaad u hambaleynayaa ka intii laga sheegay baa inagu filan waxaan u mahadnaqayaa gaar ahaan dadka hawsha badan mar walba ka qaata ee soo bilaabay oo Dr. Sacad ka mid yahay oo qaranka qorshayaal badan oo wanaagsan uga qayb galay hawl badanna u haya shukri baadaro oo maanta aan doonaan uga mahadnaqo maalintii wasaaradda la geeyay oo dhowr iyo 10 sano hayso dadku waxay arkeen wasaaradda aan jirin laakiin waxaan ugu mahadnaqayaa inay dhowr iyo 10 sano muujisay deegaanku muxuu yahay oo maanta qof waliba deegaankii u soo jeedo u dhageysanayo ay noqotayna inaynu fahmnay haddaynaan deegaanka daryeelin inay nolosheenna iyo kuwa ubadkeena aynu baabiinayno aad iyo aad u sarda ku fiican dhammaan madaxa kale waan mahadnaqayaa wasiirka qorsheyntana waan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada fiican ee uu soo hirgeliyey qaran ahaan maanta somaliland sanadkan aanu joogno bilowgiisa aanu joogno iyo maanta halkaynu maraynaa alxamdulilah waa wanaagsanahay dal iyo qof iyo shirkad adduunyada bini aadam wuxuu soo dhashaa isagoo ooya markuu soo dhasho isagoo jibaadeena uu dhintaa intuu bini aadam nool yahay hawl baa horta alla uu xalilayo marka hawsha iyo noloshu waa walaal dhibaatada iyo noloshu waa walaal qof waliba saaka gurigu ka soo kacay baahi baa taalay shakhsiyan isaga hawsha u taalay oo shirkad weyn hawl baa meel ka taalay marka markasta dhibaato way jiraysaa qarankana dhibaato way ka hormanaysaa hadduu sidoo xaliyo dawladdana waxa loo samaystay inay xalisho dhibaatooyinka maanta hawsha inoo taala Soomaaliya sanadkan waqtigan joogno waa laba qodobka koowaad oo maanta muddaanta wasaaradda waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darrana ah dad nagaga dhintay badan dhaawacmay khasaare badan naga gaaray waa dhibaato aynaan filayn oo inagu timid maantana waxaan filayaa in qof walba ku fikirayo oo Soomaaliland darihi dhibaatadaas ee loo xaliyo muhiimadna koobaad muddaadkooda waa inaynu xalilno dhibaatadaas caanood si nabad dawlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay xabad joojin dagaalkeena joojiye shuruudaan ciidamadana waxay xakameeyaan qarar ahaanna aynu nabad ka doono bilowgii ilaa halkii u dambeysay tiraba 3 jeer ayaan halka ballan qaaday xabad joojin shuruudaan alla ma qadarin dhibaatadu way taagan tahay maanta waxay la tahay waxa joogana loo taliyo nabadana laga wada shaqeeyo waana muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhagan nuur yahay waxaan codsanayaa Soomaaliland dhameeyay nabadda gudubto sideen u aragnaa dhibaatada maanta xalkeedu inuu yahay halkaan u aragnaa waxa weeye
arrintani waa arrin somalilan gudaheeda ah waxa weeye gobol somalilan ka mid ah oo dadkooda iyo muwaadiniinta somalilan ah oo wax ka tirsanaya dowladda waxay u baahan yihiin in loo fadhiisto la dhegaysto dowlad ahaan diyaar baan u nahay wixii ku qaloocan laga saxo wixii laga qaldaman iskaga garaabo iyaguna waxay ka qaldaman ka garaabaan waana waxaan dhammaysan karno haddaynu somalilan nahay horena waa u dhammaysan jiray qaar la midoo badan baa ina soo maray dagaalada gudaheena oo badan oo sidoo kale la kala codo ina soo maray oo ka muddo dheer qaatay somaliland baa keligeed xalalatay iyadoo aan dhibaato u iman miir qabay oo fadhiisatay wixii qadara waa la iska garaabay dalkuna uu ku dhismay maanta waxaan leenahay arrintaas waa arrin somaliland dhexdeeda ah ciidda nagala shaqaynaysa nabad ee ama dowlad ah ma urura ee wanaaggeena doonaysa ee daacadnimo uga talinaysana nabadda waa la kaashanaynaa oo waanu ogolahay inuu kolka hore laakiin laga bilaabo waa somaliland oo dhexdeeda dhibaat jirtaanu caawinayna waxaanaan ogolayn oon macquula ahayn in dadka qaarkii ama qayb ka mida soomaaliya oo puntland gobolka ah inuu dagaalka iyo talada iyo faragelin qayr caadiya la soo galo sool isagoo raacaya hab qabaliya taasi sax maaha afrika oo dhan ayaa xadadkii isticmaalku qaybsaday danna waxay mooday afriki oo heshiis ku tahay in xadadkisoodii ahaadaan haddii kale afrika ciido xad samayn kara mayso xadka somalilandna waa kaa caalamiga ah markaa cid ka bedeli kartaa dee afrikunbuu la xelyahay afrikoo tiraakii isticmaalka inaga daaya mooyaane aynu dib u qaada mooyaane keligeed somaliland xadkeeda la odhan maayo gooniha loo faquuqo sharciga afrika ma ogola ka caqligu ma ogola soomaali waa qaybsan tahay qaybiga waxay la nooshahay etoobiya ay waxla leedahay waa ogolnahay xadkaanu dhowraynaa waanu ku tahnidaynaynaa iskaashi wanaagsanna waanu ka doonaynaa waa la yeelayna qaybi kenya waxla leedahay waa ku ixtiraamayna mid waa jabuuti canfar bay wadagan yihiin oy wax wada leeyihiin oy dalay walaalnimay ku leeyihiin waa ku hambalyaynaa waa ku xaq dhowraynaa soomaaliya puntland iyo jubbaland iyo south maxay ahayd koonfur galbeed iyo galmudug waa gobollo iyo maamulo somaliland waa ku hambalyaynaa kuwa faragelinayno maamulka puntland iyo dowladda puntland ka dhisan ee soomaaliya ka tirsan iyo madaxda soomaaliya waxaan leenahay waa faragelinta ciidan leh ee kharash leh ee tala soo gurida leh xaq maaha ee kala baxa oo nabadgelyada oo dhamaysanaya noo daaya dowladda etoobiya oo naga codsatay oo tiri haddii ay dhibaato tagtay walaaliin baan nahay madila qabanaa wax nabad haa nabadda ciddii la qabso waa ogolahay cid walba laakiin marka hore qaabka lagu dhisay nabad waa maxay waa arrin somaliland dhexdeeda ah talabayn hore aanu qaadnay waa noo dhisan maanta cidda u hadlaysa sool iyo lascaanood arrinteedu waa garaadada diyaar baanu nahay garaadadaasi si alliyasi iyo fagaarahay doonayaan iyo cidday doonayaan bay lagula hadlo oy somaliland oo dhammi gogasha u dhigto qof aligoona walaal maxaa doonaysaa maxaa qabdabay maxaynu saxnaa waxa isxilqaamay oo arrintan naga furtay oo imika u dhisan oo taagan madax dhaqameedkii somaliland oo dhan oo anigu jiri raaso waa diyaar waa inaga wakiil waa iga wakiil wixii nabadda u helayo ee ay keenayaan diyaar baanu nahay haddii cid kale loo baahdo waa ku darayna markaa waxaan doonayaa inaan qodobkaa caddeeyo inaynu arrintaas somaliland ay kow inoo tahay inaynu xalkeeda dhamayno qodobka labaad inoo yaalla isna culayskiisana waxa weeye qorshaheennuna hore uu ahaa sanadkan u noqdo sanadkii doorashooyinka iyadoo dhibaatooyinka iminka salaascaalo taagan yihiin haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo ciddii kale doorashada taagan tahaybaa dee socon maayo dictoorkeena adhigaya in 5 sano mar cusboonaysiyo hadday dhibaata jirtana waa in muddo yar uu nagu daraayo aan loo dheerayn doorashooyinka waxay noogu xil saaran guddida doorashooyinka qaranka waxay noo keenayaan iyaga nooga fadhiyaan noo keenaan wadadii doorashada si loo waqtiga la qaban lahaa iyo muddadii wadada la marin lahaa midna iyadoo waa cadaan imika
waxaynu ku jirnaa qasab weeyaan doorasho galaa doorashooyin waxaynu ku jirnaa saddexdii xisbi qaran oo waqtigooda dhacay oo aan doorashadii geli karin ilaa iyaga dib loo doorto waxaa halkan oo taagan 10 urur oo certificate loo siiyey inay u tartamaan inay xisbiye qaran noqdaan oo iyaguna darka taagan oo la wardeen maxaa waqtigeena looga qaaday waxaan u baahanahay in isugu geyno inaynu degdeg guddida doorashada uga codsano bal inaynu sameeyaan qorshe aynu waqtigeena ka bixi karayno dhaqaalihii iyo amnigii iyo nabadii ma wahayno ma isweydiinayna in xisbiyadii iyo ururada doorashadii galaan oo tartamaan oo saddex xisbi soo baxaan oo qaran ma jiro xisbi oran kara anigu xisbi baan ahay la tartay maayo ururada oo sharci certificate baa xitaa isbitaal baa saadarteed saamilada siyaasadda oo imika saddexdii xisbi iyo 15 kan urur soo baxo sharci ahaan siman waxa laga rabaa inaynu qorshahaana iyadoo aan istuhmayn iyadoo aan cid ku riixayn ee doorasho la'aan dalku aanu soconaynin inaynu ku dadaalo si goormaynu qabsan karnaa doorashadii iyaduna waa muddaanta koowaado inta ay ka dhaxaysaa ka wada shan doonta iyagoona ishiifeen iyagoona iscaayeen iyagoona dadka jahwareerinay qodobkaan halkaasaan dhigayaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa qoladana waa hambalyaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu